ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad iyo kuwa duufaan ee Nisa ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay howlgallo kala duwan ka sameeyeen xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho. Howlgalka oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinayo ayaa ciidamada waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir, iyadoo ciidamada ay baarayeen guryaha qaarkood. Gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed ayaa sheegay in ay ciidamada yihiin kuwa ilaalinayo amniga bulshada, balse dadweynaha dhankooda looga baahan yahay inay la shaqeeyaan ciidamada. Saraakiisha ciidamada booliska Haramcad ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in howlgalladani ay ka socdaan inta badan degmooyinka gobolka Banaadir, isla markaana ay sii wadi doonaan ilaa laga xaqiijinayo amniga caasimadda. Howlgalladani ciidamada ammaanka ay ka wadaan degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii ay soo kordhiyeen cabashada bulshada ku nool magaalada Muqdisho in ay jiraan kooxo hubeysan oo dhac u geysanaya.